dowladda Sacuudi Carabiya ayaa labadii sano ugu dambeysay fasaxday in muslimiinta dibadda ka imaanaya ay gudan karaan xajka kadib xayiraadihii cudurka COVID-19. Ku dhawaad 2 milyan oo qof oo ku nool gudaha iyo dibadda Sacuudiga ayaa sanadkan fursad u heli doona gudashada mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan Islaamka, kaasoo sanadihii 2020 iyo 2021 u baaqday xanuunka COVID-19. Haddaba waxaa suuragal ah in booqashada xajka ee saameynta COVID-19 dartii sanadihii la soo dhaafay ay dad badan u arkaan dhacdo cusub oo aan horey u soo marin dunida Islaamka. Balse sooyaalka taariikheed wuxuuna barayaa in marar badan u baaqday xajka gebi ahaanba ama qaybo badan oo ka mid ah dunida Islaamka aan laga soo xajinin sababo kala duwan dartood, kuwaasoo isugu jira cabsi dhanka ammaanka ah oo dagaalo ay sababaan iyo cudurrada faafa oo iyana sababay hakadka isku socodka dadka oo xujaydu ay qayb ka yihiin. Haddaba muuqaalkeenan waxaan ku eegaynaa waqtiyadii ugu caansanaa ee acmaasha xajku ay hakadka gashay iyo sababaha keenay hakadka xajka. Imise jeer ayuu xajku u baaqday qalqal amni dartii? Taariikhyahanadu waxay wariyaan in acmaasha xajka ay baaqatay ku dhawaad 10 jeer, waxaana sababay arrimo la xiriira dhanka ammaanka ama ha ahaato jidkii loo aadi lahaa oo aan ammaan lahayn, burcad isbaaro dhigatay, ama dagaal ka socday magaalada Makka iyo agaarkeeda. Waxaana ka xusi karnaa dhacdooyinkaasi kuwan soo socda. Lambarka 1, duulaankii Abraha 570 ilaa 571 dhalashadii Nabi Ciise kadib. Xajka marka laga soo tago inuu yahay mid ka mid ah 5 tiir ee diinta Islaamka, haddana waa sunno soo jireen ah oo uu jideeyay Nabiyullaahi Ibraahim, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee, si taxana u soo socday oo xitaa casrigii jaahiliga aan kala go'in. Taariikhda qoran ee ilaahay hadda la hayo waxay tilmaamaysaa in markii ugu horreysay ee acmaasha xajku baaqato ay ahayd sanadii 570 ilaa 571 dhalashadii Nabi Ciise kadib. Carabtuna waxay u taqaanay sanadkaasi sanadkii maroodiga, waana sanadkii u dhashay nabigeena Maxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Sanadkan waxaa magaalada Makka ku soo duulay mid ka mid ah boqorradii Xabashida oo lagu magacaabi jiray Abraha, isagoo watay ciidan fara badan oo ku hubaysnaa raxan maroodiyaal ah oo u carbisan dagaalka. Suuradda 105 ee Quraanka Kariimka ah oo ku magac dheer suuradda maroodiga ayaa ka faaloonaysa qisada duulaankaasi iyo mucjisadii qabsatay Abraha ee u horseeday jabka. Lambarka 2, dilkii saxaabiga Cabdullah ibn Zubayr 693 dhalashadii Nabi Ciise kadib. Wixii ka dambeysay soo ifbixi Islaamka markii ugu horreysay uu xajku baaqdo waxay ahayd sanadii 693 taariikhda miilaadiga. Sanadkaas waxaa magaalada Makka ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamo taabacsan dowladdii Umayyiinta oo ka mid ahayd boqortooyinkii soo xukumay dunida Islaamka intii u dhaxaysay 41 ilaa 102 taariikhda hijriga, iyo ciidamo taabacsanaa saxaabiga Cabdullah ibn Zubayr. Ciidamadii Umayyiintu waxay ku guuleysteen in soo afjaraan dagaalka kadib dilkii Cabdullah ibn Zubayr. Waxa uu sidoo kale burbur soo gaaray Kacbada sharafta leh. Lambarka 3, xasuuqii kooxda qaraamida ay ka geysteen magaalada Makka. Dhacdooyinka ugu caansan taariikhda ee sababay inuu xajku baaqdo waxaa ka mid ahaa xasuuqii magaalada Makka ay ka geysteen koox ku caan baxday magaca al-Qaraamida oo ah koox diimeed ka farcantay mid ka mid ah firqooyinkii Shiicada ee Ismaaciiliyada loo yaqaano. Kooxdan oo uu aasaasay nin lagu magacaabi jiray Xaamid al-Qarmidi waxay soo shaac baxday dhammaadkii qarnigii 4 ee hijriga ee ku beegan bilowga qarniga 11 ee taariikhda miilaadiga. Kooxdani waxay aaminsaneyd in acmaasha xajka ay ka mid tahay dhaqamo ka haray jaahiliyadii hore oo ay tahay waajib diini ah in la mamnuuco. Sanadihii 317 hijriga, Abu Daahir al-Qarmidi oo hogaaminayay kooxda qaraamida ayaa weerar ku qaaday magaalada Makka iyadoo lagu guda jiro gudashadii acmaasha xajka. Waxa uuna halkaasi ka geystay xasuuq aad u daran oo sababay dhimashada in ka badan 30,000 oo ka mid ah dadkii ku xajinayay magaalada Makka. Sidoo kale Abu Daahir wuxuu bilaqaystay sujaayadihii Kacbada sharafta leh lagu qurxin jiray. Sidoo kale wuxuu aasay ceelka biyaha Samsamka ay ka burqan jireen, isagoo ku daadiyay meydadka xujaydii uu ku dilay Kacbada dhexdeeda. Waxa uuna horey u sii qaatay Xajarul Aswadka oo 10 sano ka maqnaa xaramka ilaa mar dambe dib loogu soo celiyo markii ay kooxda qaraamidada jabeen. Dhacdadan aadka u xanuunka badan waxay keentay in ku dhawaad 10 sano aysan muslimiintu gudanin acmaasha xajka. Markaan aan fiirino cudurrada safmareenka ee sababay baaqashada xajka, marar badan ayuu xajku u baaqday cudurro safmareen ah dartood sida kalooraha, furuqa iyo wixii la mid ah oo ka dilaacay meelo kala duwan oo ka tirsan
dunida islaamka. cudurradaasi sababay baaqashada xajka waxaa ugu caansanaa oo taariikhda ku xusan kuwan soo socda. lambarka koowaad, cudurka almaashiri 357 ilaa 358 hijrida. cudurkan oo safmareen ahaa, taariikhdu maysan xusin sababaha keenay cudurkan. wuxuu ku caanbaxay magaca almaashiri oo ah meesha uu ka soo bilowday. waxa uu si baaxad leh ugu faafay magaalada Makka iyo daafaheeda intii u dhaxaysay sanadihii 357 iyo 358 hijrida. waxaana xanuunkaasi u geeriyooday dad badan, wuxuuna sababay in la hakiyo acmaasha xajka si loo xakameeyo faafitaankiisa. lambarka labaad, kaloorihii Hindiya 1246 hijriga. cudurkan safmareenka ah ayaa isna sababay inuu hakad galo xajka sanadii 1831 miilaadiga oo ku beegneyd 1246 sanadka hijriga. cudurkan oo markii ugu horreysay ka bilowday magaalada Kolkata ee ku taala dalka Hindiya ayaa dunida dhammaanteed ku faafay ilaa uu soo gaaro dhulka loo yaqaano Xijaas oo ay ku yaalaan magaalooyinka barakaysan ee Makka iyo Madiina. lambarka saddexaad, furuqii Xijaas. cudurkan oo dilaacay sanadii 1814 waxa uu sabab u noqday in kumanaan kun oo muslimiin ah aysan sanadkaasi xajin, iyaga oo ka baqayay cudurkan safmareenka ah oo horay u sii galaaftay ku dhowaad 10 kun oo qof oo deganaa dhulka Xijaas ama Sacuudi Carabiya. inkasta oo taariikhyahanadu aysan isku raacsanayn inta jeer uu xajku baaqday, haddana waxaa la dhihi karaa waa ilaa 200 jeer oo muslimiintu aysan gudan tiirka shanaad ee islaamka sababo kala duwan awgood. xitaa mararka qaar waxaa dhici jirtay in dhowr sano xiriir ah aan cidna cagaha soo dhigin magaalada Makka iyadoo laga baqayay cudurro faafa oo ka dilaacay magaalada Makka iyo daafaheeda ama laga cabsanayo dagaal socday markaasi.